horta shirka Nairobi ka dhacay aan fikir ahaantayda xisbiyadu waa shiri kara oo dal dimuqraadi ah nahay dalka Italiya istamani waa dal furfuran baynu nahay oo freedom of speech oo siyaasadiisu furfuranta marka hadii saddex xisbi ama afar xisbi ay shiraan dadmiis macnaheedu ma aha in waxa weeyaan dhibaatooyin ay keenayso laakiin qaabka ay u muuqday shirkan u muuqday Nairobi ka dhacay qaabka uu muuqday ayaa wuxuu ahaa qaab yaani dawladda ugu xumeynaya oo qaran dubisnimo ah aniga fikir ahaantayda shirkaas iyo hadalladii maalmaha dhawto mucaaradka ka soo baxayay waxaan u arkaa iyo waliba in lagu dacweeyo dawladda beesha caalamka waa qaran dubisnimo way aniga fikir ahaantayda way dawladdani waa dawlad waxa weeyaan curdina oo hadda soo kacaysa in gacmaha la qabto oo wixii ka qaldanna xaajood iyo walaalnimo Soomaaliyeed lagu dhameeyo ee qurux badan laakiin in la yiraahdo beesha caalamka la isku dacweynaya maxaa in dhex yeelo isku dacweynayna inaga wadalkeenu maanta burbursay oo u baahan inaan ka soo saarno maanta gudka ku sii socdo marka shirkaasi qaabka uu dhacay anigu waxa ila muuqataa inuusan hayn mid Soomaalinimada u